Asalaamu calaykum. Waa mar kaliya barnaamijkeeni qaabkee ayaa Facebook lacag looga sameeyaa. Qaar ka mid ah asxaabta ayaa waxay soo weydiiyeen qaabka Facebook page lacag looga sameeyo. Haddii laga sameeyana shuruudahana looga baahan yahay, sidee ayaynu fulin karnaa? Haddaba asxaab badan ayaa shuruudaha inta badan fulisay, balse qaar ka mid ah aan weli fulin. Haddaba si aynu barnaamijka u guda galno, fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay, subscribe saar, like, share iyo weliba waxaad waddo nagu dhiirigeli. Waad mahadsantahay. Qodobadeena soo horreysiin doono kow waxa ka ah luqadda laga helayo Facebook page. Markaad doonayso inaad lacag ka samayso streamskiisa ama monetization-ka inaad lacag ka samayso. Luqadaha waxaa ka mid ah Swedish-ka ama Spanish-ka, Arabish, English, France, Germany, Hindi. Way badan yihiin luqaduhu. Aan u guda galno qodobka labaad ah waddanka laga helayo wadamada ay suurtagal tahay inaad lacag ka samayso ama monetization-ka loo geliyo sida Germany, Austria, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Colombia, kulli way badan yihiin Malaysia, New Zealand, Portugal, Singapore, Africana South Africa ayaa ka soo gasha, way badan yihiin kale Switzerland, Taiwan, ilaa ay ugu hooseyso United States, United Kingdom, United Arab Emirates. Kuwaas waxaan kusoo gabagabeynaa wadamada laga ogol yahay inaad lacag ka samayso Facebook monetization-ka iyo weliba luqadaha aad ka helayso aad kulba isticmaali karto. Ayaan rajeynayaa asxaabteeda inaad labada qodob fahanteen. Labada qodob waa labada qodob ugu muhiimsan in aad ogaato in waddanka Soomaaliya aan laga sameynin monetization Facebook. Waa inaad qodobka ogaataa. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah waxa uu yahay in aad haysato asxaabtaadu ama ay asxaabtaadu gaarayso 10,000 oo followers ah. Waa markaad doonayso inaad streamska ama xayeysiiska aad furato, waa inaad ugu yaraan aad haysataa 10,000 oo qof. Minutes-ka lagaga baahay waa muuqaal kastaba 3 daqiiqo in ay daawadeen 30,000 oo saacadood waa in page-kayga la daawaday. Qodobka labaad qodobka saddexaadna waa in partner monetization bas علشان Facebook waa inuu aqbalaa waa inaad aqbashaa shuruudaha Facebook markuu hawlahaaga eegano markuu kusoo aqbalo waad socotay oo akhtar buu noqonayaa sida qodobka saddexaad ka harsan. Qodobka afraad oo horena u soo sharaxnay wuxuu dhigayaa country availability علشان waddanka joogto in Facebook monetization laga ogol yahay ama uu aqbalayo sida haddii aad Soomaaliya joogto oo kale aan la aqbali karin. Laakiin adigoo Soomaaliya jooga waxaad samayn kartaa in Facebook page-kaaga ciwaankiisa aad ka dhigi karto France ama Germany ama Holland, dabeeto qof ku jooga Faransiiskuna oo halka share ka siiso ama saaxiibkaaga oo kale u yahay oo tira war ciwaankiisa dabeeto ciwaanka markuu ku siiyana isagana laftigiisa aad page-ka uga dhigi karto admin. Qodobkaas waa qodob muhiim. sidaad arkaysaan hadda Facebook page-kan waa eligible علشان waa la qaabilay Facebook page-kan qofkani lacag uu ka samayn karaa. 10,000 qof ee looga rabay waa dhammaystiray. Minutes-kii ama waqtigii looga baahnaa waa dhammaystiray. Monetization eligibility standard Facebook page-ku waa aqbalay. Waddanka uu joogana waa laga helayaa Facebook monetization-ka. sida qodobkan 4 qodob haddii aad dhamaystirto Facebook page waxaad ka samayn kartaa lacagta aad doonto. Laakiin waa inaad mid xasuusnaataa haddii aad rabto Facebook page-kaagu inuu lacag kuu sameeyo kana badbaado waxyaabaha koobiga, waa inaanad isticmaalin muusig aanad lahayn. Wuxuu doono xitaa mid lagu ogol yahay hadduu yahay mararka qaar dhib baa kaaga iman karta. Way Facebook page-ku ama Facebook casri uma aha. Inkastoo casri yahay inaan been ka sheegin, laakiin sida YouTube-ka uma nidaamsana waa hawl imika la bilaabayo. hadduu doono yani muusig lagu ogol yahay ayuu kugu qabsan karaa oo Facebook page-kaaga oo dee meel daaqadaba uga saari karaa ama wixii aad kusoo tacabtay meesha uga saari karaa. Marka isku day inaad codkaaga iyo oo safeexa iyo waxaad soo gudbinayso safeexa aad dadka u soo bandhigto hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. 4 qodob haddii aad dhamaystirto insha Allah Facebook page lacag waad ka samayn kartaa. Waxaan rajeynayaa inaad ka samayn doonto kuna dhiiranaan doonto. كل هدي aad leedahay balaaqo ama wax soo gudbin cilmina aad u leedahay dadka inaad wax u soo bandhigto wuxuu doono waxa noqda waxaad soo bandhigto waa inaad dadka soo jiidan kartaa, waa inaanad waxyaabaha ay dadku leeyihiin aad ka dheeraataa. haddii aad rabto inaad isticmaasho waxay dadku leeyihiin waa inaad soo iibsataa ama waa inaad qofkii ka haysataa ogolaanshiyo. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad qodobadana ka faa'iideen. qaabka qodob kalena waan idin raacin doonaa oo muuqaala bal insha Allah ila daawada isagana.
hadda page-kan oo kale wada arkaysan asxaabteeda aan aad ku jecelahay 10kii qof ee looga baahnaa 75% buu dhammaystiray. Muuqaaladii la daawanayay ama Facebook page-ka muuqaaladii laga rabay inuu daawashadooda ay gaadhaan wuxuu keenay 25%. Ogolaanshihii Facebook page-kana waa uu helay, waddanka uu joogana waa laga ogol yahay. Marka haddii aad Facebook page-kaaga aad u samaysan nidaam aad uga fogaanayso waxyaabaha copyright-ka aad si nidaamsan waqtigaaga qaaliga intaad ku dhex lumin lahayd Facebook page waxaa qurux badan inaad Facebook page ama Facebook caadiga ah lacag aad ka samayso. Insha Allah waxaan rajaynayaa asxaabteeda qaaliga inaad wax ka faa'iideen. Haddii aydan wax ka faa'iideen insha Allah comment-ga aad ku dhaafi doontaan. Wixii su'aalaad aad qabtana insha Allah waan kaaga soo jawaabi doonaa intii ay aqoonteedu gaarsan tahay. Waxaa jira asxaabta qaaliga oo wad laga diiday ama shuruudo laga diiday ay jiraan. Insha Allah isagana cashar baan ka samayn doonaa gaar ah. Cashar ku xiga iyo weliba qaabka appeal looga qaadan karo haddii ay qaladaad Facebook ka galeen aad dib u codsan karto in Facebook page-kaaga mar kale aad lacag ka samayn karto. Aad baan kuu salaamay. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.